maanta waa maalinta koowaad ee arooska. Arooskana wuxuu soconayaa 3 maalmood. Martidana ayagoo gaajeysan inay baxaan looma ogolaado. Dibi weyn ayaa u diyaarsan arooskani oo ilaa 200 kiilo noqonayo. Martida ayaa lagu soo dhaweeyaa. Markii raashinka la diyaarinayo, gabdhaha ayaguna waxay la fariistaan gabadha caruusada ah, magaceedana waa Ruqayya. Dharka ayay isla fiirfiirinayaan, dharka loo keenay ayay isla fiirfiirinayaan. Halkani markii la rabo in gabadha la guuriyo, ehelka ama qaraabada wiilka ayaa marka hore gabadha u imaanaya ehelkeeda, way fiirinayaan. Haddii gabadhu ay ka helaan, markaas kadib ayay gabadha ciddeeda ka soo doontaan oo waxay dhahaan wiilkeena ayaan u rabnaa gabadhiina. Markaas kadib ayaa loo ogolaadaa, waana sida sharciga islaamka uu qabo in gabadha ehelkeeda laga soo doonto kadibna ehelkaasi ee gabadhu bixiyaan ama aabaheeda ama qofkii markaas weligeeda ah. Arooska wuxuu socdaa 3 maalmood. Habeenka koowaad ee arooska waa la ciyaarayaa, waa la caweynayaa, gabadha caruusada ayaa ciyaareyso, asxaabteedii baa la ciyaareyso, balse ciyaartan ay u jeedaan looma ogolo in raggu ay soo dhaxgalaan. Caweyskan iyo baashaalkan dumarka kaliya waay. Xitaa arooska looma ogolo inuu u soo dhawaado halkan. Wiilasha si gaar ayay meel u istaagaan, way sugaan. Marka ugu dambeeyay ayaa loo ogolaadaa wiilka arooska inuu soo galo goobta asagoo ciyaaraya, weliba asagoo la ciyaarayo caruusadiisa. Markii habeenka ugu dambeeyay ayaa loo ogolaadaa inuu soo galo. Waa habeenka koowaad markay dhamaato. Haddana waa maalintii labaad ee arooska. Saan hore idinkugu sheegnay, arooska wuxuu socdaa 3 maalmood. Maantana waa maalintii labaad. Raashin ayaa la diyaarinayaa, martida baa loo diyaarinayaa, dhaqsi baa la soo kacayaa. Raashinkii waxaa loo diyaarinayaa ehelkii, qaraabadii, asxaabtii. Hooyada gabadha dhashay ayaa soo dhaweynayso, martida guriga imaanayaan, hadiyooyin ayay keenayaan. Gabadha hooyadeedana aad iyo aad bay calool xumaataa markii gabadha laga guursado. Laakiin ilintani waa ilin farxadeed, ma aha ilin murug. Gabadhaada la guursanayo waa farxad. Hadiyadaha ayaa loo keenaa. Asxaabta oo degan isla xaafadda ay yihiin ayaa u keena hadiyado kala duwan. Gobolkan Anadolu oo ka mid ah gobolada hoos yimaada dalka Turkiga ayaa dhaqankoodii sidan ah. Caruusada way labisanaysaa, wiilkana wuu soo labisanayaa. Markuu soo labisto ee soo wada baxaan, haddana way ciyaarayaan mar labaad ayagoo dharkii caruuska ama dharkii arooska ayagoo labisan. Ciyaartaas markay ciyaaraan waa ciyaar dhaqameed ah oo gobolkan laga yaqaano. Halkan bay ku ciyaarayaan. Maalinta labaad waxay soo xiranaysaa dahabkeeda. Dhaqanka ugu weyn ayay sameynayaan oo micnaha in la ciyaaro, dahabkii la soo xirto, asxaabteedii ee la ciyaarto, wiilkana asagana uu la ciyaaro. Calanka Turkiga ayaa la soo qaadaa. Caruuska wiilka arooska ah ayaa calanka Turkiga soo qaado. Markaas ayuu wuxuu imaanayaa goobta arooska uu ka socdo. Taasina waxay ka mid tahay dhaqanka u yaalo gobolkan in wiilka uu soo qaado calanka Turkiga kadibna uu yimaado guriga gabadha laga soo guurinayo. Ciyaar dhaqameed baa la ciyaarayaa, durbaano baa la garaacayaa, turumbooyin baa la garaacayaa, ubaxyo baa la daadinayaa, gabadha waa loo soo labisayaa, taaj qurux badan ayaa loo soo xirayaa. Gabadha waxaa la fariisinayaa meel u gaar ah ayada oo gabdhaha kale ayaa la fariisanaysaa. Gabadha caruusada ah ayadoo daawanayso baashaalka iyo qoobka ciyaarka halkan ka socda. Isla habeenkii kalena haddana habeenka labaad haddana waxaa dheelayaan labada aroos ama caruuska iyo aroosada. Marka uu dhamaado habeenka ugu dambeeya arooska ee 3aad, labadoodii waa la isdhinac fariisiyaa. Kadibna waxaa bilaabanaysa haddana ciyaartii oo dhaqameedkii ee gobolkan u yaalay, oo waxaaba laga yaabaa xitaa dumarka dhan inay ku ciyaaraan oo meeshaasi farxad darteeda. Gabadhana waxay dhinac fadhidaa wiilka guursan lahaa oo halkaas ayay isla fariisanayaan ilaa laga gaarayo habeenkii oo la guurin lahaa. Gabadha
ayaa waxaa loo marinayaa cilaan. cilaanka waxaan u marinayaa hooyadeedii, asxaabteedii iyo qaraabadeeda. cilaankaasi qaabkii cilaanka oo caadiga ah ee aroosada looma mariyo, kaas wuu dambeynayaa. laakiin kan waa caado in gacanta dhan oo calaacasha dhan in cilaan loo mariyo, lugta ayadana sidoo kale cagtoo dhan in cilaan loo mariyo. waa dhaqan. ayadana wejiga waa la daboolayaa, maro baa wejiga laga saarayaa. markii marada wejiga laga saaro ayaa cilaankaas loo saarayaa. weliba cilaankaas si ka fiirsi ah looma fiirsadee, gacmaha, calaacashoo dhan, macal faraha, macal cidiyaha, meel xitaa loo baneynayo ma jirto. ayadana madaxeeda ugu daboolan yahay, lugahaas baa loo marinayaa cilaanka, iyo gacmaha baa cilaan si fiican loogu mariyaa. markii guuriska la gaarina cilaankeedii caadiga ahaa wuu dambeeyaa, waa loo marinayaa. hooyadeedii baa halkaan ku macsalaameynayso. dhaqan iyo caado waxay u leeyihiin haweenkan cilaanka la marinaa in la wada ooyo. oohin waa caado. weliba qof baa meesha imaanayso, dadka martida halkan joonanka oysiinayso. calankii Turkiga la soo qaadayaa. markii la soo qaado calanka Turkiga, waxaa la surayaa goobtii arooska uu ka socday, waa gabadha gurigeeda. markii halkaas la iskugu yimaado ayaa haddana waxay sameynayaan calankii. markii meesha la suro, raashin waxaa jir la yiraahdo ahlan wa sahlan, raashin oo soo dhaweyn ah. labada ehel, wiilkii gabadha ay iskugu imaanayaan haddana mar kale halkaanay ku cunteynayaan. waa cuno wadareed ee loo yaqaan ahlan wa sahlan, waa soo dhaweyn. qaraabadii halkaan ku cuneynayaan. faraskii waxaa la diyaarinayaa oo gabadha lagu guurin lahaa. gabadha taajka markii loo soo xiro oo la soo bixiyo, gurigeeda markii laga soo bixiyo, walaalkeeda ayaa ciyaarayo. dhaqanka waxaa ah markii la guurinayo, walaalkeeda ka weyn ayaa ciyaarayo. markuu si fiican u ciyaaro oo ciyaar dhaqameedkoodii uu ciyaaro, waa walaalkeeda weyn ayaa ciyaarayo. asaga maalintan ka hor ciyaar looma ogolo. maalinka saddexaad oo la guurinayo oo guuriska la qaadi rabo, gabadh la qaadi rabo, halkaana lagu wada ciyaarayaa. ehelkii, qaraabadii. ciyaartan waxay u gaar tahay ragga, dumarka ma soo dhexgalayaan. dumarka gaar bay u ciyaaraan, raggana gaar bay u ciyaaraan. taasina waxay ka mid tahay anshaxa iyo asluubta oo diinta islaamkana baray. calanka waxaa la agsurayaa shaati oo arooska uu leeyahay iyo dirac ee leedahay caruusadda. halkaas baa la surayaa, calankii baa la agsurayaa, labadii dharkoodii iyo calankii. haddana waxaa ciyaaraya gabadha aabbaheeda iyo wiilka aabbihiisa. waa markii ugu horeeyey ee wada ciyaarayaan. markaana ayaan loo ogolyaa ayaga inay ciyaaraan, waa wiilka aabbihiisa iyo gabadha aabbaheeda. taajkii baa loo xirayaa. taajkii markii loo diyaariyo si qurux badan, anaga waxaa laga yaabaa in oo beauty salon iyo aan isku mashquulino, laakiin meeshaan gabadha gurigeeda lagu diyaariyaa. faraskiyaa loo diyaarinayaa oo ayada lagu kaxayn lahaa. asaga wuu lugeynayaa, laakiin ayada faras baa lagu qaadayaa qurux badan. dharkii loo keenay oo aroos ahaan loogu keenay, dharkaasaa loo saarayaa faraska. ayadana waa lasoo bixinayaa. markii lasoo bixiyo, ayadoo qurux badan oo taajkeeda u saaran yahay ayaa la qaadayaa. faraskii baa la saarayaa. faraskii markii la saaro, mas-uuliyaddu waxay ku wareegtay wiilka ehelkiisa. calankii Turkiga iyo diricii iyo shaatigiisa ujeedaan, ayagana waa lasoo qaadayaa. dhaqan waaye. arooskii baa la guurinayaa. mar gabadha waxay ku jirtaa dhexda, faras bay saaran tahay. wiilka arooska ah wuu lugeynayaa, gabadhana wuu keenayaa. haddaba markii caruusadda markii la keeno, haddana waxaa ciyaarayo ninka faraska waday. darawalkii faraska ayaa haddana halkan ku ciyaarayo. ciyaar qurux badan markuu soo bandhigo oo uu ciyaaro oo uu dhammaysto, markaas kadib ayaa gabadha guriga wiilka loo soo galbinayaa. asagaa soo galbinaya midka faraska kaxeynayay. shaqadiisa waxay tahay gabadha inuu galbiyo. markuu ciyaaro, ciyaarsi uu dhammaysto, ayuu faraskii soo kaxeynayaa. faraskii wuxuu u soo wadaa xaggaa iyo gurigii wiilka ayuu u soo wadaa. wiilka gurigiisa u diyaarsan yahay. waxaa la sugayaa gabadhii in la keeno caruusadda ayadoo faraskeeda qurux badan saaran. wiilkana waa sugayaa, waa kana wuu joogaa. gabadhii waa la keenay, waa loo hambalyeenayaa. ehelka dhan waa loo ogoloona. marka looma ogolaanayo dhaqsi inay degto. faraska markuu yimaado, ayadana ay saaran tahay,
cabaara halkaas saarnaanaya wiilka wuxuu dhunkanayaa faraska oo arooska waay faraska ayuu dhunkanayaa markaas kadib ayaa wadan waxa la leeyahay biyo keen biyo markuu keeno arooska biyihii wuxuu siinayaa gabadhii walaalkeedii haddana wuxuu diyaarinayaa kafee buu diyaarinayaa meesha banaankaas kafee uu ku diyaarinaa ayadana wili waxay saaran tahay faraskeeda kafee waxaa la siinaya wiilka walaalkeeda iyo darawalka oo soo waday faraska iyo markaas qofkii meesha saddexaad oo qaraabada ka mid ah markii kafeegaas la cabo haddana wili marka degaysay neefkii la cuni lahaa la bireenayaa neefka markii la bireeyo oo ayada wili waxay saaran tahay faraskeeda saaran tahay neefka markii la bireeyo oo dhiigaas oo meesha ku daato neefka diyaarin iyo karis baa loo diyaarinayaa asagana arooska wuxuu soo dejinayaa gabadha caruusada gurigiisa ayaa loo sii galbinayaa saas buu arooskoodiiba ku dhammaadayba